الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. iminka waa salaadii subax iminku waagu bariyay salaadii subax ayaan imika ka soo baxnay waxaan u diyaar garoobaynaa barnaamijkii waxaan imika soo socdaa wax weeye gurigii waxaan u diyaar garoobayaa inaan cadaydo waxaan u diyaar garoobayaa kale waxyaabaha kale daily life-ka oo inaan maryahaygii iyo hawshii wixii aan ku qabanayay aan diyaarsado haday tahay stethoscope-keygii haday tahay maryahaygii scrub-ka ahaa wixii oo dhan aan diyaarsado. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu ku sii soconaa isbitaalkii waxa baara 7 barkii subaxnimo idinkuna si fiican ula socotaan waxa weeye aqoon iyo wax badan baa idinku kordhi doona insha Allah. aad baan idin salaamaya dhamaantiin. السلام عليكم ورحمة الله. Okay, السلام عليكم. عليكم السلام. anigoo Abdulaziz hadda ayaan shaqadii la wareegay waa abaaro 8 subaxnimo insha Allah waxaan maanta maraynaa wax weey gelin hore ku qoranahay waa maternity hospital maternity department waxaan ka shaqaynaynaa 6 saacadood insha Allah maternity department waxaan wareejinayaa abaara kooda duhurnimo insha Allah baa la wareegaya waa shaqada dhiigga bilaabaya waxaan wadi doonaa ilaa Britole insha Allah kooda duhurnimo insha Allah bay soconaysaa marka imika waxaan bilaabanaa roundskii kuwa ma faylashi patientnada maanta waxaa noo yaala 12 patient maternity-ga oo 5 ka mid ay yihiin normal SPD iyo aad u dhalay iyo 4 cesarean section iyo 2 dilation and curettage loo sameeyay ama lagooyal weyn laga soo xaaday ayaa maanta noo yaala gaayimka waa dhigay bilaabi doonaa rotation kiiban marayna imika suuqii hore
halkan waxa weeye qaybtii carruurta la dhigayay neonatal ICU kan waa dhakhtarkii seniorka ayaa ku qornaa neonatal ICU-ga wax carruuri maanta ma yaalaan halkan waa incubatorkii baby care-ka lagu sameynayay maanta wax carruuri ma yaalaan qaybta carruurta alxamdulilah ilaahay baa carruurtii caafimaad siiyey departmentkii baan iminkana joognaa waxaa noo yaalaan maanta hal bukaan oo keliya laba kalena iminkay dhaleen soo halka bukaan noo yaala waa gabadh garaaflatin baana nina iminkana looks like inaan babyga soo degayn maybe inaan maanta geli karnaba qaliin insha allah cesarean section inay iska dhashana waa macquul marka delivery departmentkiina iminkaan la wareegnay waa baarakoodii duhurnimo insha allah halkaas inooga soconaysa waxay noo dhiman medical departmentkii unbaa isna inoo dhiman waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joognaa haddana medical departmentkii ama qaybta medicalka xanuunada guud waxaa maanta noo yaala iyadana hal patient oo keliya laba patient oo kalena waan fasaxnay hadda halka patient inoo yaala waxaa gabadh 30 jir oo macaan leh diabetiga managementkeedana uu socdo looks like inay Cushing syndrome uu jiro probably waxyaabo kale oo hata differential kaaba ku jiro polycystic ovarian syndrome ama because magaciisa kale la yiraahdo marka patientkaas baa noo yaala isna managementkiisa goonida wato managesiisa goonida loo manage karaynayo haddaan ka nimi check out-kii dhakhaatiirta haddaan igu soo wareejiyay waarka oo dhan departmentada oo dhan shaqaduna iminkay bilaabmaysaa insha allah waa baarakoodii duhurnimo nimanka isku wareejinay insha allah waxaan idila soo wadaagi doonaa beritoole iyo subaxa insha allah iyo duhurkaba markaan baxayo insha allah iyo see hawsha u socota